بسم الله الرحمن الرحيم أصحابي soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan faradii taxanaha ahaa ee aan mareegta ku soo gudbin jiray waxaan idiin soo gudbinayaa cutubka saddexaad weydiimaha een cutubka saddexaad layla hore baan ka gudbinay kan marka waa naqtiinkiisii u dambeeyey aad buu u dheer yahay waa howlgal kow ka bilaabmaya ilaa iyo 6 7 ma filaya 7 marka si fiican buu gaaga ugu qoro la soco haddii ila haydmo jawaabtiisi waa kuu leeyahay mid kasta qaabkaasuu jawaabtiisa kugu leeyahay qaybta koowaad marka waxaa layna weydiiyey maahmaahyada inaan isku aadino marka maahmaah kasta lambarkeedi si saxa buu ugu qoran yahay qaabkaas baa u akhrisanaysaa howlgalka labaad isaga waxaa la rabaa qor macnaha erayada oo waxa weeye haddii la kuu ron yahay marka aaf oo kale masiibo ama dhibaato ereygan kale isagana la yidhaahdo afbeel oo kale waxaa la dhahaa mindida oo kale ama faaska markii uu af dareeyo baa waxaa la yidhahdaa afbeel halkan waxaa ku qoran marka adin marka jeeni buu isaguna noqday oo xoolaha 4 adin bay leeyihiin 2 hore oo jeenye ah iyo 2 dambe oo luga ah marka haddii hal xabo laga dhigo waa jeeni markii qaabkaas oo kale iyaguna kuugu qoran yihiin qaybta kuugu xigtaay marka maxay noqonaysaa qaybta kuugu xigtaay waxay noqonaysaa iyaduna howlgalka waxay noqonaysaa saddexaad kan saddexaad marka waa erayo taraxan ama khaldan waxaa laga rabaa ardaygu marka inuu erayadii saxo halkan qayood baa ka soo baxday halkan qawaar baa ka soo baxay waraaqna waa noqotaa qawsaar baa ku xiga qarqarsi qamuunyo qaabkaasoo kale iyaguna noqdeen marka qaabkaas u qoro oo buugaaga si qurux badan ugu wareegso fallaarta ku xigta oo howlgalka afraada waxaa layna ka rabaa ereyga bilowgiisa baa layna siiyey iyo dhammaadkiisa inaynu markaa ka samayno erey saxa marka halkan oo kale waxaan soo qaadanay xagmar bay inoo noqoto xagmar kabaleef jeef udubcad ereyga udubcad marka waxaa la yidhaahdaa macno ahaan haddaan fiirino dhowaan reerka marka la dhiso gabadha reerka marka dhowaan la dhisa waxaa loo yaqaan udubcad sagandaaq ereygan ahna meeshaan buuggaaga waxaa ku qoran siigo daaq baa ku qoran marka siigo daaq wax erayo saxa noqon mayso laakiin sagandaaq weye marka ugaarta oo kale iyo geela oo kale iyo wixii markaa xoolaha kale banjoogka ah ee bannaanka jooga waxa la dhahaa sagandaaq oo weligii goonida u baxa marka waa qaabkaas waxaa kuugu soo xiga ereygan kale isaguna macnaha u baahan fooldiin marka waa jajabow ama fooldiin waa umusha xanuunka markaas qabta jajabowna waa la dhahaa fooldiinna markaa waa la yidhaahdaa aan sii soconno qaybta kuugu xigta waxay noqotay howlgalka lixaad kan lixaad waxaa la yidhi isku aadi ereyga iyo weedha marka waa kuwii hore oo kale qaabkaasoo kalean isagana kaaga dhigay ereyadii waa kuugu qoran yihiin sidaa saxdaa markaa isagana ereyada adoo fiirinaya oo hubinaya u sax qaybta kuugu xigta waa howlgalka 7 howlgalkaas 7 marka isagu muxuu noqday wuxuu noqday haddii ilaahay kuu ron yahay warcelinta waa goobogelida buuggaaga oo bogga 8aad baa joogtaa sidaan filayo waxay marka noqotay iyo howlgalkii 5aad oo boggii kale kuugu qoraayo aan xagga u soo wareejiyey wuxuu marka noqday jawaabtoodii waxay kuu noqotay goobogelida 6dan u horeysa culid iyo bixiye iyo fayadhowr gaagax xodxodasho minandumis maxaa marka kuu soo haray 7 iyo 8 7 marka waxaan halkan kuugu dhigay buuggaaga waxqabadkiisa 5aad howlgalkiisa 5aad 2 googaalaysiya kuugu qoran 2 halxiraalaa baan ula jeedaa marka mid wuxuu ku leeyahay gabar 3 ku inamowday oo uumiyaha deeqday 30 jirkeediina amag looga dhigay aragtideedii marka waa bisha oo bishu markay 3 jir tahay iftiin dunidoo dhan ay ifsato weeye 30 markay gaadhana waxay noqonaysaa amag bay noqonaysaa tan kale kuugu xigtana waa dabka waxaa la yidhi waxaan dibnood iyo lahayn daan wax lagu quuto oo digada xeradiisa taal degalku dheeraaday haddaad gabayga daalici taqaan deelka ka higaadi taasina marka waxay noqotay dabka oo dabka marka qorya lagu shido qoryahaas wuu cunaa daaman iyo ilkona ma leh uu wax ku raamsado digada marka lagu sheegaya waxay noqonaysaa dambaska marka haddii ilaahay kuu ron yahay meesha dabka lagu shidaya intaas ayuu marka kuugu egyahay layligaagu laakiin isla goobogelidaas intaadan ka bixin
erayada halkan aan kuugu qoray waa erayo goobagelidaada kuugu jira oo macno kuu samaynaya bogga siddeetanaad. Curaar oo kale, iyo cuq iyo bilaale iyo banqi iyo biciriir iyo xog ogaal iyo minxiis iyo maxlal. Marka curaartu waxay noqotaa rahaamadda bay la macno tahay. cuqle waa faal waa adiga kuu baxay waa tuu abwaanku odhan jiray. bilaale waa koobka faraslaha loo yaqaan ee wax lagu miisto. oo gabadhii abwaanadeed waatay odhan jiray badda mawjadda leh nin bilaalo daray oo yiri biyaha baabah baan ka dhigi saasay ahaan jirtay. afar waa banqi banqi waa ceel biyo badan banqi waxaa la yidhaha ceel aad u biyo badan. biciriir waxaa la dhahaa indhaha markii aad isku soo dhaweyso baalashooda oo qorraxdoo kale ay kulushahay ama wax ku cawaraan inaad wax eegto wixii markaa ay humaag aad eegto waxaa la dhahaa biciriir. waxaa kuu soo haray lambar 6. lambarka 6aad waa xogogaal. xogogaal waa ninka farda dhaariga oo kale ama odayga weyn oo xogogaalaha oo dabshidaha reerka ah. xog ogaale marka waa nin taariikhyahana rugcadaa soo jireen ah. minxiis dadkeen qaarkood waxay u yaqaanaan malxiis bay u yaqaanaan. marka waa ninka arooska waxa weeye dila kuu raya ninka arooska ninka saaxiibkiisa ah oo la socda wey. waxaa kuu soo haray maxlal. maxlal waa nooc guurarka ka mid ah. waxaan u malaynaya ereygan inuusan ahayn Soomaali. laakiin waa nooc guurka ka mid oo waxa la yidhaahdaa gabadhu nin ay markaas waxa weeye isqabeen in reerkii markaas uu dumo oo ay isku xanaaqaan kadibna ninkaas ay kala tagaan. kadibna ninkii ay gabadhii rabto inay kusoo laabato ay heshiiyaan waa in guur uu dhaco oo gabadhaas ay guur soo madho. saa darteed mid markaa iska doqon oo aan waxa weeye saa u weynayn bay guursanaysaa isbuuc ama bil meelahaas markay la joogto bay iska cayrinaysaa. muhiimadda ay ka rabtaa maqsuudka meesha ku jira muxuu yahay gabadhan guur bay soo madhay markaasay ninka kusoo laaban kartaa. marka sharci ahaan ma qurux badna wax bannaanna ma aha. culimmaduna waa joogtaa bay la tahay haddii aan khaldanahay waa la isaxayaa bay la tahay. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa haddii ilaahay kuu ron yahay aad ayaad mahadsantihin.